bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan daawadayaasha qiimaha leh ku soo dhawaada janaalkeena layaabka dunida fadlan haddii aad tahay markii kugu horeysay aad soo booqato janaalkan subscribe saar haddii aad ka heshay muuqaalkana like saar una sii share gareey asxaabtaada mahadsanid dalka Hindiya waa kan ugu mucjisooyinka badan caalamka wax walba aan la sameyn karin waa laga soo wariyaa dhacdadan ayaa daliil muuqata oo ah in dalkaasi ay caasimadda ajaa'ibka caalamka sida uu ku waramayo wargeyska Hindustan Time haweeney 30 jir ah ayaa loo guuriyay Maskobra kaas oo la sheegay in ay jecleed muddo dhan 3 sano dhacdadan wargeyso badan ayaa soo qaatay sababta uu arooskan u dhacay ayaa lagu sheegay in tuuladan ay gabadhani ka soo jeedo laga aaminsan yahay in qofkii guursada maskaas uu tuulada oo idil hogaamin doono sixroolayaal tuulada degan ayaa arrintan soo jeediyeen waa markii ugu horeysay ee taariikhda ee la maqla haweeney mas guursatay balse Hindiya tan layaab kuma noqon maxaa yeelay maalin walba ayaa kuwa ka daran laga soo sheegaa xafladda arooska ayaa sida la sheegay qaatay muddo 1 saac iyadoo ka soo qayb galeen dad gaaraya 2,000 oo qofood kuwaas oo dhammaantood u yimid inay ka mid noqdaan dadka nasiibka saacidi doona maska la guursaday dartii haweeney 29 jir ah oo dhalatay dalka Thailand ayaa la tilmaamay in ay tahay haweeneyda adduunka ugu gacmaha weyn xilligan waxaana culeyskeeda gacmaheeda haweeneydan gaarayaan ilaa 9 kilogram Dhonjay Maximum ayaa muddo dheer waxa ay dhibaato xoogan ku qabtay culeyska iyo weyninka gacmaheeda oo ah kuwa xad dhaaf ah waxa ayna haweeneydan arrintan u keentay caafimaad darro iyo dhibaatooyin kale dhaqaatiir caafimaad oo ay u tagtay haweeneydan ayaa waxa ay ku wargeliyeen in xaalka gacmaheeda ay yihiin kuwa dhib badan aysan hayn xal aan ahayn inay gacmaha laga jaro taasoo ay ka soo horjeestay Dhonjay Maximum oo dooyinka cunnada ku iibisa ayaa xaaladan dunida naadir ku ah la kulantay iyadoo yar waxayna ku haysaa xanuun aad u daran oo xitaa marka qaar uu u keena in qaarkeeda sare ee jirkeeda in uu bararo Mariam Matanzi Birbiya waa hooyo ku nool tuulada Kambiri ee dhacda duleedka caasimadda Kampala ee waddanka Uganda waxayna dhashay 44 ciyaal ah balse hadda waxa ay haystaa 38 maadaama 6 ka mid ah ay geeriyoodeen hooyadan ayaa 6 jeer dhashay mataano laba ah 4 goorna min 3 mataano 3 marna waxay dhashay mataano 4 ah halka marar kala duwan ay u mashay ilmo kaliya hooyadan ayaa guursatay iyadoo 12 sano jir ah sanadkii 1993 halka ninkeedu uu ahaan ka weynaa xilligaas 28 sano gabadhan ayaa sheegtay in arrintan aysan la yaab ku ahayn iyada maadaama aabaheedu uu dhalay 45 ciyaal ah halka hooyadeedna ay dhashay 38 carruur ah Masar Birbiya ayaa lagu daray buugga layaabka dunida lagu qoro ee Guinness World Records maadaama ay noqotay haweeneyda ugu dhalmada badan ee dumarka ku nool qaaradda Afrika oo dhan maanta halkaas baan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii waa aniga Taxkiin Nur Axmed wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh